warkooban oo ka soo baxay dawladda dalka Itoobiya ayaa waxa lagu sheegay in marna aysan suuragal ahayn ciidamadooda inay ka baxaan gudaha dalka Soomaaliya kadib markii wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur uu si cad u sheegay in qayb aysan ka noqon doonin howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ee 2025 magaciisa uu noqon doono EUSOM afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ninka lagu magacaabo Nabith ayaa waxa uu sheegay in ammaanka gobolka iyo sidoo kale kan Itoobiya ay khatar ku yihiin sida hadalka uu dhigay al-shabaab isla markaana iyagu ay dhowrkii sane u dambeeyay la dagaalamayeen si aysan gudaha Itoobiya iyo sidoo kale xuduudaheedaba aysan u imaan afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya Nabith ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya dhowrkii sane u dambeeyay Soomaaliya dhinaca nabadda ay kala shaqeynaysay isla markaana hadda aysan suuragal noqon karin in guud ahaanba ciidamadooda ay faaruqiyaan Soomaaliya Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in ay sugi doonto xuduudaha ammaankeeda iyo qaybo kamid ah gudaha dalka Soomaaliya taasi waxa uu sheegay in udub dhaxaad ay u tahay dawladda dalka Itoobiya si guud ahaanba loo wiiqo awoodda al-shabaab wuxuu marmarsiyo ka dhigtay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya haddii Itoobiya ay ka baxdo gudaha dalka Soomaaliya al-shabaab mar kale ay dib u soo noolaan karaan sida uu hadalka u dhigay isla markaana gobolka geeska ay ka geysan karaan falalid ku ammaanka dawladda Itoobiya iyadu wali waxa ay muujinaysaa rabitaankeeda in gudaha Soomaaliya ay sii joogto isla markaana ay kala qaybiso bulshada qaybaheeda kala duwan sida maamulada qaar kood oo hadda ay ku sugan tahay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya Nabith ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya ay yihiin dad darisa isla markaana meel aan u kala socon waxa uu hadalkiisa inta raaciyay in guud ahaanba ay qayb ka noqon doonaan wax kasta oo dadaala oo lagu xallin karo ammaanka guud ahaanba Soomaaliya waxa uu tilmaamay in al-shabaab awoodooda iyagu ay qayb ka noqdeen in la wiiqo balse hadda mar kale aysan ogolaanaynin in guud ahaanba dalka isaga baxaan midowga Afrika iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya iyagu si wada jira waxa uu sheegay in dawladda dalka Itoobiya guud ahaanba aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub 2025 hadii guud ahaanba iyagu meel aysan iska dhigin damacoodii ahaa rabitaanka badda Soomaaliya iyo sidoo kale heshiiska ay la gashay maamulka Somaliland in meel ay iska dhigto Itoobiya doorashadii ka dhacday Somaliland waxa ay ku dadaalaysaa in mar kale Muuse Biixi uu soo noqdo taas oo iyagu rajo ka sii dhigaysa in guud ahaanba heshiiska uu sii socon karo balse warar hoose oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in Muuse Biixi siyaasad ahaan looga takhalusay deegaanada Somaliland isla markaana siyaasiga cirro uu noqon karo shakhsiga hogaamin doona maamulka Somaliland taas oo mar kale noqonaysa dhabarjab kale oo dawladda dalka Itoobiya ay wajahayso Itoobiya hadda waxay u muuqanaysaa mid darbiyada madaxa ku garaacaysa kadib markii midowga Afrika beesha caalamka iyo sidoo kale Soomaaliya ay ka weysay wax taageero ah isla markaana dhammaan loo muujiyay in guud ahaanba ay joojiso faragelinta ay ku hayso gudaha dalka Soomaaliya maadaama Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo aysan suuragal ahayn in la farageliyo Itoobiya hadda waxa ay shalay iyo sidoo kale quus ka taagan tahay heshiiskii Somaliland ay la gashay hadda waxay luminaysaa dhaqaale aad u fara badan oo ay ku heli jirtay magaca ATMIS ciidamadooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya waana arrin kale oo dhaawac ku noqonaysa Abiy Ahmed Itoobiya gudaheeda Abiy waxa kaga soconaya dagaalo aad u xooggan oo ay ku hayaan jabhadaha Masar oo dhinac taagan Eritrea oo sida ay silmida Soomaaliya hadeerna waxa ku soo darsantay dawladda dalka Suudaan oo sheegtay in Itoobiya hadii ay ka laaban weyso faragelinta biyaha webiga Nile ay Suudaan qayb ka noqon doonto in ay la safato dawladaha iyagu ka soo horjeeda Itoobiya waana arrin kale oo Abiy Ahmed sidoo kale kooxdiisa khatar ku ah hadii aysan joojin duulduulka tirada badan oo ay ku hayaan wadamada dariska aragtidaada bartoosay noogu reeb